wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa kormeeray mashaariic eel qodisa oo wasaaradda ay ka waday magaalada Baydhabo. wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed aadan xasan maxamed usaama waxa uu sheegay inay jiraan qorshayaal wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ay ku doonayso sidii biyo ku filan ay u heli lahaayeen shacabka ku dhaqan koonfur galbeed Soomaaliya. إن شاء الله ما رجعنا نسمع كم والبين اسكو بدلان ديوان مشروع بورا كبساس إن شاء الله حتى لما يلا لنقول بورا كميلندو magaalada gudaasha ana wartiwiin ay takiyaal in la bileeriyo meel raayis diyaatar la kusoo biya qorshaha insha Allah saasan qaban shaqooyinka deegaanada TV iyo media arrinta geedka barnaamijka saabsan ay shaqooyinka dareeran wasaaradda hay'adaha meel raayis shaqooyinka gacan ku sii hayaan marka meel raayis dowladaha meel raayis oo hadalkan ka soo yeeray wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa ku soo aadaya xilli magaalada Baydhabo haatan laga dareemayo biyo la'aan aad u baahsan. Ali Ilyas Cabdullaahi, Honkebel TV, Baydhabo.